السلام عليكم داوديال meel kasta daafaha dunida kala joogtaan waan idin salaanay liibaan iyo ladnaan waa shubaal media maalinba waxaa soo baxaysa mucjiso horle iyo wax lala yaabo yaab annagaa aragnay ma maqli jirteen war bal haddii nimankii da'yarta ahaayo haddana hadeer lalahaa waa fanaaniin ay noqdeen nimankii rag ahaa dee meel lagu baxsanayo ma lahanbe waxaaba ka sii daran ninkan yar wuxuuba ku jiray gobolkii war waxaaba u malaynayaa anuu waaba raggii yiriisuu dilay haddeeba saas tahay gobolka haddii laga soo dhex qabto gobolka dabagal badan buu u baahay dabagal gudbahaleed weya waa laysugu soo galay waxaan leeyahay bal horta intaanan ka hor dhicin muuqaalka yarkaa ee ninka laga soo duubay anuu umaba boginba horta sideedaba waxaa maqlaysaa wax badan baa la qabtay nin baa la qabtay qofkii keligiis baa meel madow isoo ka hadlay weli ma aragteen qof dembiga intuu qiranayo hareerihiisa dad badni taagan yihiin oo laga hadalsiinayo maxay tahay laakiin waxaan qofka marka hore inta keligii meel la keeno mar uu micnihii uu leeyahay waxa anaa samay anaa saan yeelay micnahaas fahmi waaye bal horta ila daawada bismillahi raxmaan raxiim magacaygu abshir gaarane axmed kooxdan al-shabaab waxaan la shaqo bilaabay 2013 shaqadeyda ani waxaa waaye fanaan waxaan ka shaqeeyaa gobolka banaadir qaybtiisa fanka iyo suugaanta ayaga waxaan u qaabilsanaa daawadayaal sidaan hore idinku sheegayba fanaaniintii baa waxaa la leeyahay haddeer waxa ay noqdeen nimankii rag ahaa ilaah baan idinku dhaariyay bal ninkaan haddeer fanaankaa ninkaan bal qaabka uu u heesaayo iyo istaylkiisa iyo sidii inkastoo horta haddii si loo sii fiiriyo malaa baa gelaysa malaa laakiin ilaa intaasee lagu garan waayo ninkaan da'yarkaa ee fanaankaa oridayday dhammaantii naftayday adiga laxaadkiyo kulla laaban beerko ladii wardada oo laqi waayay oonto adigahan ku laasimay adigahan ku laasimay oridayday dhammaantii naftayday adiga laxaadkiyo kulla laaban beerko gabagabadii waxaan leeyahay shalay wuxuu ahaa macallinkii dilaaga maantani fanaankii gobolka talo maxaa ku xigi doona yaa wallaahi garan maayo waa yaabana qofka xiga oo lasoo qaban doono yaa way talo ma janan buu noqon doonaa yaa ma brofesor buu noqonayaa ma oday xil hore hayay buu noqonayaa yaa dee wax la sheegaba la garan maayo mise wuxuu noqon doonaa talow abaanduulayaasha maanta iyo ciidamada armaaba iyaga ku dhowdi raadgalaa dee waxaan wax ka badatay haddeere xaaladdu meesha baraka male maraysaa marka waxaan leeyahay oo aan kusoo gebagabeynayaa ninkaan iska farmaajeysan farmaajo waxaa la dhahaa bahal macaan oo rootiga lagu cuno dee bahasha iska macaankaasuu isaga jiraaye ninkan khayran la dhahay indhaha kala furan baa waxaan islahaa waa fiiro dheeryaha meel badan buu wax ka arkayaa bahashu waa hurudaa war waxaa odhan lahaa hurdada ha laga kaco muqdisho waa caasimadii dalka waa indhihii dalka waa hooyadii dalka waa bilicdii dalka in ay noqoto bahalagaleen oo maalin walba dee bahal ka soo baxo inagu kala waday noqonaysaa sheekada meesha in laga guuray noqonaysaa oo la cidleeyo somaad fahmi waayo meel aan laga guri karin bahalaha waa dhibaato waxaa odhan lahaa geedka xididka salkaa laga soo jiraa salka haddii laga jiro waa bes geedkaasu ma soo noqonayo laakiin haddaad aragto wax soo noqnoqdo waa waxaan weli salkoodi la gaarin marka taa waxaa kaloo dheer xero ba'day waay meeshu waa xero lamagalaydii magaca laha muxuu ah faluuja noqotay faluuja ummadda ilaahay ha ka soo gaaro islaamka ay ku nool ee xalaasha aan waxba samayn inta dulmiga wadana ilaahay ha ka qabto waxaan leeyahay dowladduna waa hurdaa ma ahan sidaa nidaam iyo wax micnihii ah ee lagu soo hiran karo maamul isku hadle maba ahan haddiiba la leeyahay gudihii gobolka shalay wuxuu ahaa bombaa lagu xiray oo
kamaradihii baa la damiyey waxba laga arki maayo oo cid ilaahay haddeer cid kiiski loo haya male dee waxay la tahay mar haddii fanaanka horta la qabto waxaa leeyahay isagaa dusha loo saarayaa waxaanu sugnaa bal horta waxa uu sheegay warbixin badan kolba uu soo wadaaye waraysi badan haddii la qariyana afkaanu furanayna waa sheegaynaa wixii jire waa shubaal media oo idinla isu soo noqod wanaagsan